بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeynaya sanad guurada 66aad ee ka soo wareegtay xornimadii, midnimadii iyo curashadii Jamhuuriyadda Soomaaliya. Kooda Luulyo waa maalin taariikhi ah oo na xasuusinaysa nafhurka halyeeyadii u soo halgamay gobonnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya. kuwaas oo inaga mudan duco xus iyo inaan noolayno dhaxalkoodii kana dhabayno himilooyinkii ay ku hiigsanayeen Soomaaliya xor ah, gob ah, midaysan, wada jirta, isku filan, barwaaqo ah oo muwaadiniintoodu ay nabad, cadaalad iyo baraare ku noolaadaan. calankeeduna si sharaf iyo karaamo leh uga babado daafaha caalamka. 66 sano ka hor maanta oo kale waxay ku astaysan tahay gundhigii xornimada, midnimada iyo dowladnimada dalkeenna, waxayna gobollada waqooyi iyo koonfureed ku midoobeen Jamhuuriyadda Soomaaliya. dareen farxadeed iyo dabaaldegyo aan kala go' lahayn ayaa lagu soo dhoweeyey xornimadii iyo gobonnimadii halganka lagu hantiyey, waxaana lagu koolkooliyey suugaan aan weligeed duugoobi doonin. waa dharaartii uu Allaha u naxariistee Abwaan Cabdulaahi Suldaan Tima Cadde mariyey, geeraarkii uu dhextaalkiisu ahaa kaana siib kana saar, oo ay tuducyadiisa ka mid ahaayeen Soomaalo calan taagta saakaa noogu horreyso, in sidayda tihiin iyo in kalaanan sixaynine, 3 wiig iyo maalmo haddaan soor cuni waayo, safrad laygama yaabo, sari maysa naftaydiye, saaxirkii kala guurnaya sarreeyow ma nusqaamow, aan siduu yahay eego kaana siib kana saar. 66 sano kadib xornimadii iyo midnimadii Soomaaliya, halis xooggan ayay maanta wajahayaan wadajirka dalkeenna, dadkeenna iyo dowladnimadeenna. waxaa ayaan darro ah in midnimada Soomaaliya ay dhaawacyadii ugu cuslaa gaareen 4 sano ee lasoo dhaafay ee uu hoggaanka dalka hayay madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday, maadaama aysan dowladdiisu aragti iyo qorshe marnaba aanay ka yeelan midnimada dalka, kuna kacday ficillo kala duwan oo kala dhantaalay wadajirka ummadda Soomaaliyeed. 66 sano kadib xornimadii iyo midnimadii Soomaaliya, madaxweynihii loo doortay xoojinta midnimada dalka ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay si bareer ah uga shaqaynayay kala geynta iyo kala dhantaalidda wadajirka ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna sii kala dirayaa Soomaalidii horey isula joogtay midnimadana ka wada shaqaynaysay. waxay dowladda uu hoggaamiyo weeraro abaabulan oo dhiig sokeeye ku qaaday Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. waxay abuurtay xiisado ay gado uga dhantaalayso Jubbaland, Hiiraanna uga fogeynayso Hirshabeelle. waxayna maanta ciidamo ku sii daadgureynaysaa deegaanada Puntland si ay ugu horiso colaad hor leh dadka reer Puntland lagu dhibaateynayo, deganaantoodana lagu khalkhal gelinayo. 66 sano kadib xornimadii iyo midnimadii Soomaaliya, waxaa dareen iyo walaac xooggan leh sida aan ula sii qabsanayno kala qoobnaanta qabyaaladuna
u sii xoogeysanayso ayna dalka uga soo cusboonaanayaan dagaallo sokeeye oo la isku dilayo aana qabiil halka dowladda federaalkuna aanay maalinba yeelan aragti iyo qorshe dib u heshiisiineed oo lagu kala badbaadinayo bulshada laguna xoojinayo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliya waxay dunida baal dahab ah uga gashay nidaamka dimuqraadiyadda markii uu Allah u naxariistay madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee si nabdoon ku wareejiya xukunka. Jamhuuriyadda saddexaadna waxay ku hana qaaday dhaqankaas xukun isku wareejinta ah. Nasiib darro maanta Soomaaliya waxay wajahaysaa halis hor leh iyo hubanti la'aan siyaasadeed oo ka dhalatay madaxweyne waqtigiisu dhamaaday oo u ooman inuu dhiig sokeeyo u daadiyo si uu sharci darro ugu sii joogo xukunka. tan iyo markii la yagleelay jamhuuriyadda saddexaad Soomaaliya waxay ku howlaneed dhismaha ciidan qaran iyo dadaallo miro dhalay oo looga qaadayo cunaqabataynta hubka si dalka looga xoreeyo khawaarijta. waxaase musiibo qaran ah in madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday uu ka joogsaday la dagaalanka argagixisada ciidankii iyo hubkii qarankana uu maanta u adeegsanayo weerarka madaxdii soo hogaamisay dalka iyo caburinta muwaadin kasta oo ka hor yimaada rabitaankiisa siyaasadeed ee indhala-aanta ah. madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee loo doortay adkeynta wadajirka ummadda Soomaaliyeed wuxuu 4 sano ee la soo dhaafay burburiyay tiirarkii udubdhaxaadka u ahaa midnimada dalka. wuxuu laalay dastuurkii dalka ee heshiiska lagu ahaa wuxuuna isku dayay inuu burburiyo mabaadi'da ay ku qotonto jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya ee ku dhisan hanaan federaal ah nidaam baarlamaani ah awood qaybsi loo dhan yahay iyo doorasho heshiis lagu yahay oo 4 sanaba hal mar ka dhacda dalka. wuxuuna sidoo kale siyaasadeeyay hay'adaha dowladda isaga oo ciidanka qaranka iyo hay'adaha garsoorka u adeegsaday boobka dhulka danta guud warakicinta danyarta gumaadka shacabka xariga saxaafadda iyo aftuubka dhalinyarada Soomaaliyeed. 66 sano ka hor halyeeyay Soomaaliyeed ayaa u halgamay inay dalkeenna iyo dadkeenna ka xoreeyaan gumaysigii shisheeyaha. 66 sano kadib waxaa xusid mudan in maanta ay dalal shisheeye nagu kaalmeynayaan dhexdhexaadinta Soomaalida maadaama madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday uu go'aansaday inuu si sharci darro ah ku joogo xukunka dhagahana ka fureystay talooyinka iyo baaqyada bulshada Soomaaliyeed uuna lumiyay kalsoonidii iyo niyad samidii uu madaxweyne Soomaaliyeed isugu keeni karay dadkiisa. 4 sano ee la soo dhaafay waxa uu madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ku howlanaa boobka hantida qaranka xaraashka dhulka danta guud baadda ganacsatada iyo naaxinta musuqmaasuqa taas oo keentay in dhaqaalaha dalku hoos u dhaco ganacsiyo badanna ay xirmaan ganacsataduna ka hayaamaan dalka ayna maalgashadaan dalal shisheeye. 66 sano kadib xornimadii iyo midnimadii Soomaaliya ayaa maanta u baahan in la badbaadiyo
awoowayaasheen waxay ka soo dhalaaleen kaalintoodii waxayna u soo halgameen oo ay naf iyo maalba u hureen inay hantiyaan xorriyad gobonnimo iyo midnimo Soomaaliyeed naguna soo simaan Soomaaliya xor ah oo midaysan waxaana mas'uuliyad naga saaran tahay inaan ilaalino dhaxalkaas qaaliga ah ka dhayno dhaawacyadii soo gaaray kuna sinno carruurteenna taas oo ah deyn qaran oo inagu waajibtay iyo hadiyadda ugu weyn aan uga tegi karno jiilasha naga dambeeya si ay u dhaxlaan Soomaaliya midaysan nabdoon cadaalad ku dhisan lehna hay'ado sal adag ku fadhiya oo ku suntan hufnaan aqoon karti iyo mudnaan loo siman yahay si aan riyadaas iyo hiigsigaas uga dhabayno walaalayaal waa inaan xil iska saarnaa adkeynta midnimada dalka maadaama ay tahay mas'uuliyad wadareed noo wada taalla muwaadin kasta oo Soomaaliyeedna waa inuu doorkiisa ka qaato xoojinta wadajirka ummadda qaybna ka noqdo dadaalada lagu samata bixinayo midnimada dalka jamhuuriyadda saddexaadna looga badbaadinayo dhaqanka xukun boobka iyo muddo kororsiga khatarta ku ah midnimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed mar kale